munaasabadani habdhicitaankeeda sida milgaha iyo maamuus kale loo soo agaasimay ayaa ahayd mid shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel ay ku soo bandhigaysay saamiyada Somtel ee Somaliland. munaasabada oo ka dhacday hotel guuleed ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, gudoomiyaasha labada xisbi mucaarad ee u cudiyay wadani, madaxda ugu sareysa shirkadda Dahabshiil Group, siyaasiyiin, aqoon-yahan iyo waliba macaamiisha Somtel ay u soo bandhigtay saamiyada shirkadda. waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay maareeyaha guud Dahabshiil Group Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale, kaasi oo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay saamiyada shirkadda Somtel ay maanta soo bandhigtay. runtii asaaskeeda iyo horumarkeeda meelo badan oo adduunka ah ayay ka soo shaqaysay ama ay ilaa ka shaqaysaa, ha noqoto marka laga bilaabo xuduudda Djibouti ilaa iyo xuduudda Kenya. qalabka Somtel maanta uu yaalaa marka xagga badda laga hadlayo deerkeeda loo isla Djibouti ka tagaa oo badda Asmara ilaa Mombasa u socdaa. marka waxay muujinaysaa horumarka kala duwan ee shirkadaha guud ee Somtel ee network gaadhan isku xidhan ay gaadheen. taana runtii waxaa keentay dadaal badan, maamul adag, dhaqaale badan oo aan u hurnay iyo waqtiyo badan oo ay soo martay. waayo ganacsiga imka maanta internetka iyo technology-ga cusub horumar badan ayuu dadka tacliintooda, caafimaadkooda, shaqo abuurka uu ka qayb qaataa. geesooda iyaguna waxaa hadalka iska daba qaatay gudoomiyaasha xisbiyada ucud, injineer Faysal Cali Waraabe, wadani, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, wasiirka boosta iyo isgaarsiinta Cabdiweli Sheekh Cabdilaahi Suufi, iyo mudan ay ka mid ahaayeen Dr. Adna Aadan Ismaaciil, Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jawhar, Garaad Jaamac Ismaaciil, kuwaasi oo dhammaantood madasha ka hadlay ayaa ku hambaliyay shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel saamiyada ay maanta ka furtay Somaliland. anigu odag maayo ha ku sii badato qiimeeda male, laakiin waxaan leeyahay intaad haysato ilaaha kugu ilaaliyo, ha kugu xifdiyo, xisaabta aakhirana Allah ha kuu fudaydiyo. nin kastoo hantiilo ah waxaa la weydiin doonaa maxaad horeeyey, maxaad halkii kaga timiday, maxaad halkeed ka keentay, maxaad ku bixbixisay. marka xisaabta aakhire ee ballaaran ilaahay ha kuu fudaydiyo. Somaliland baryahan dambe waad aragteen horumar ballaaran oo ilaahay loogu mahadnaqo ayaynu gaadhin. Somaliland halkaa may gaadheen haddii aan sharikadahaas Dahabshiil oo kale iyo kuwa badan oo kale, laakiinse ay ugu mudan tahay Dahabshiil aanay dadaal geliyeen. waxaa la yidhi hadalku hana koobnaado hana yaraado, waxna ha laga garto. runtii shirkaddan Dahabshiil Group taariikhdeeda waa la og yahay. haddaynu maanta bilownana midaynu ka dhammaanayna maaha. wuxuuna marka ay wanaagsan yihiin oo ay fiican yihiin waxaa weeye waxaa laga gartaa midhaheeda. maanta Dahabshiil Group waxay daah furayaan innagoo xafladdantii ku xigtayna aynu ka qaybgalno Hyundai ee ahayd shirkaddii baabuurta sheerkaa la sheegay ee telefoonada Somtel. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. waa shirkad weyn, waynu ku faani karnaayo meelaan weligan ganacsigeenu gaadhin buu gaadhay Dahabshiil oo international buu noqday. taasa wuxuu ku keenay waxa weeye sumcad wanaag iyo dad aqoon loo urursaday, dad aqoon leh oo urursaday aqoonta halkaa gaadhisay. innagu ma naqaano waa runteeda siduu u sheegay Jamaal, waxaan wada lahaanshaha oo inagu yar yahay. laakiin waxaan idiin sheegayaa waddanka India la yidhaaho kombaniyada India 80% marka hore waxay ku bilaabmeen family business. markii dambena Simonka uu furay Dahabshiil ayay u fureen. waxay keeni kartaa horumar weyn iyo dadkii oo wax wada lahaanshuhu uu ku bato haddii Ilaahay ka dhigo. waxaan mar labaad ku hambalyaynayaa hindisaha inay keeneen. waxaan u rajaynayaa shacbiga Somalilandna inay arrintaa loo furay iyo fursadda la siiyey ay ka faa'iidaystaan. waxaan maanta aad ugu faraxsanahay ka soo qayb galo xafladdan lagu daahfurayo in shirkadda Somtel ay dadka u furtay inay ku yeelto saami. waad ogtihiin waxa loo sameeyaa sheerarka iyo saamiyada, waxa loo sameeyaa suuqyo. waxaa ugu caansan suuqa New York waxaa ka mid ah Financial Times qolka ugu sarreeya.
weliba waxaa loo sameeyaa shirkadaha technology-ga oo ay Somtel ka mid tahay suuqyo u gaara suuqa ugu weyn yahay suuqa la yiraahdo Nasdaq ee boqolka shirkadooda ugu weyn adduunka ee technology-gu ay dadka u suurtageliyaan inay iibiyaan saamiyada iyo shareerka oo ay ka mid yihiin Google ama Alphabet Microsoft Apple iyo intii waxay jireen shirkado isgaarsiineed oo bulshada u furay inay share yeeshaan mar haddii maanta Somtel ay ku soo biirtay waxaan halkaa ka muuqdaa in suuqeena isgaarsiinta iyo technology-gu uu kor u kici doono badan ay ku soo ugu dambeyntii iyaguna waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha guud ee Dahabshiil Group Maxamed Siciid Ducaale iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi anigu geelay baan ahaayo geelu waxa la maalaa markuu dararo ayaa caanaha laga maalaa marka maanta markii shirkadii darartay ayaa sheerkii furay inta waxaan uga jeedaa qofku waxoogaa shir uu ku darsado inaanu muddo dheer aynu ku qaadane oo markiiba oo wixii Ilaahay uga carfo uu ka helo taana Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay oo sida aanu ku tala galay oo Ilaahay inala garto Ilaahay baa mahad leh marka imika laga bilaabo sheerka shirkadu waa furan yahay qof walba wixii Ilaahay uga carfo ka helayaa kan Hargeysa furan ka Soomaaliland baa furan ka Muqdisho furan ka Puntland baa furan dadka af Soomaaliga ku hadla ayaa laga wada sheer gelinaya ajnabi kuma na tala gelina Soomaalidan horta ka ciiltirana waxa af Soomaali ku hadlaya marka horta taasi waa sidaas oo waa tii raggii horeba ay sheegeen mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waan idin wada salaamaya aad iyo aad bay mahadsantihiin waanu hambalyeynaa shirkadda Dahabshiil hawlaha qaranka soo qabtayna hadda la isu sheegi maayo ilaa halkii ka soo bilaabantay Maxamed Siciid oo Dahabshiil ahayno guddisadana shalay ay ahayd ilaa bariga aan dalka wuxuu qabtay haday halgankii iyo xariihii iyo taa la sheegayna goobjoog waa loo ahaa ilaa intaana waa u soo joognay sharaf iyo aaminaad iyo odaynimo inta waxaad maray dadka badankiisu in ay kala soo kulmeen oo hawl wanaagsan qarankan la soo maray iyo duruufo adag oo inta badan goobjoog aanoo ahaa ama aan wada joognay maantana waa ilaahay mahadi haddii shirkad caalamiya tahay kuwa kale ee qaranka la midkaana waa dhiirigelinaynaa qodob waan taageerayaa uu sheegay caaqilka mushtarka ama caaqilka ganacsada sida maanta magacaa loo sheegay oo ahaa shirkaduhu waxa wada yeeshaan oo hala ballaariyo ganacsadeena waxaan ku darayaa dhammaantood inta badan shirkadaha Soomaaliland laga aasaasay ee aan wakiilada ahayn oo ay Dahabshiil iyo ugu mudayeen Daala iyo Omar iyo Som Cable iyo ay ugu badan yihiin gaarka ah ee cid wakiilka uga ahayn Soomaaliland laga aasaasay ragga aasaasay intooda badani waxay ahayd rag aan iskuul gelin jaamacadan ka bixin sida Maxamed Siciid kan garab taagan ee Ilaahay uu siiyay awood maskaxeed oo hawsha inta leeg caalamka technology-ga u guuray ay kaga dabaashaan oo halkaas soo gaaraan Maxamed Umar Daariq RTN Hargeysa ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo deg Google Play ama App Store-ka ku qoro IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka haddaba ka isticmaal teleefankaaga adeegyada IBS Bank